warahmatullahi wabarakatuh soo dhawaada dhamaantiinba waxaan aad ugu qoslay madaxweynihii jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan oo taxtaxaashaya washington d c iyo farmaajo oo ka daawanaya newska ka daawanaya ila farmaajo waa laga mamnuucayso lama socotaan in washington tago ya waa cajiib wey ha walle aad iyo aad baan ugu qoslay ya waa arrimaha adduunyada waxbaa isbedelaya dabaylaha socda isbedela waxa socda guulo waaweyn oo sidaa u gurxamaya oo midiba midda kale ay runtii fajax ku noqotay ay maaragtay dadkii af soomaaliga ku hadli jiray oo dhan ilaa qolooyin kenya ka yimid ya oo waxaan arkayay caawa aad soomaalida niyo kenyana maxaa nagu diray nin inantiisuna ka shaqayso filla soomaaliya oo runtii aad iyo aad igu kacsayin xataa bulshada muqdisho degan ayaan arkayay amina halganay soo dhoweynaadeen ayaan arkayay oo isaga ugu dhisno aad u xanaaqsan oo maanta meel laga wareysanayay wixii saansaantii waxaa isbedelay dabaylo waaweyn baa socda timekuna imika wuxuu la jiraa meeshan la yidhahdo somaliland haddasaad ula socotaama meeshan la yidhahdo somaliland ilaahay iyo waktiga iyo dad daacada ya oo wada socda calankaa tawxiidku ku qoran yahay oo sidiisa u duulaya waxaa laynagu soo dhex daray qaar inaga mid ah oo nabad iyo nolola anigu weligii ma arkin arrin caynkaasa qaar nabad iyo nolola haddana xisbiyadeennii ka mid ah wayn la socdaa fiiro gaara inagu iminka waxyaalaha dhamastigii inooma wanaagsanaa waxyaalaha ina kala qaybinaya had iyo jeer waa waxyaalaha cadowgu ka faa'iidaysto haddaba dad baa laynagu dhex daray inaga gudhayna waa laynagu dhex jiraa la socda arrintaa fiiro gaara u yeesha laakiin ha ka dhawaajinina ha buunbuuninina haddaad buunbuunisaan cadowgaa kusoo dhex dhacaya cadowga markuu soo dhex dhacana idinkooda kala qaybinaya idinka markoodu kala qaybiyana somaliland way u dhammaatay la socda yaa meesha somaliland layidhaa maanta meel dibad ah oo lagaga soo duulayaa ma jirto maanta washington meel taxtaxaashina waxaan aad iyo aad halkan mahad gaara uga dirayaa jaaliyadda reer somaliland ee maraykanka degan kuwaasoo runtii feer iyo laadba ku dagaalamay streetka washington d c dhexdeeda iyadoo ay yimaadeen arrinyanna waa idin yara wadaa bal hadda la socda waxaa jirta berigii hore waxaan isa saari jirnay luqadda waxaa la yidhahda inu isticmaalno luqadda bini aadamka ama luqadda la isticmaalo politically marmar bay wax dhaawacdaa marmarna waxbay dhistaa arrinta hadda la yara socda reer somaliland dad waxaa tihiin runtii very emotional markay noqoto xagga qadiyadda oo waxaad moodaa dhammaanteenba in wixii naga soo horjeedsadaba aanu dagaal ku bilowno laakiin kuwa inaga soo horjeeda ayaa kala duwan qaar waa traditional qaar waa hostile they will never change isma bedelayaan whatever happens kuwaas isma bedelayaan hadda la socda qaarna had iyo jeer informationka ay helaan iyo circumstanceska ay ku jiraan xaaladda ay ku jiraan ayay ku xiran tahay si aad u bedeli karto qadiyadooda xagga ay somaliland ka taagan yihiin baryaha waxaa dhacday in ay sameeyeen wax la yidhaahdo gacan saar beelaha ka soo jeeda muqdisho ee reer soomaaliya oo kuwaasoo runtii iyo dadka reer somaliland jaaliyadaha waxaa jira jaaliyadaha qaar hoos ahaan u shaqeeya oo runtii jaaliyadaha kale gacan saar laleh oo u taga oo maaragtay ka daya inaynu ka daydayno approach ku samayno maxamed gaashaa soo dhoweynaada aanu approach ku samayno in aynu kala saarno yaa inagu hostile yaa inagu cadowa waxaa dhacday waxaa jira group la odhan jiray hawiye action group la yidhaahdo dadkii reer somaliland inta badan waxaanu isticmaalnaa waxa la yidhaha wellan weyn gadaad weyn kelmadaha caynkaasi waa kelmadaha ay aad iyo aad uga faa'iideen haraagii siyaad barre oo aad iyo jeer aad iyo aad u necab qadiyadda somaliland haddaba fiirsada arrinkayga haraagii siyaad barre wuu ka duwan yahay bulsho weynta degan muqdisho dhexdeeda bulsho weynta muqdisho degan qaar badan baa og in political history ama geographically ay ka duwan tahay somaliland oo shantii soomaaliyeed ee la isu keenayey inay somaliland ka mid tahay nfd wixii la odhan jiray jabuuti wixii la odhan jiray kilinka meesha la yidhahdo iminka inay ka duwan tahay oo markaa iyagu had iyo jeer yidhaahda war somaliland haddii aynu siino xornimadeeda ama aynu ogolaano inay yani dowladdeeda noqoto waxaa laga yaabaaba inay soomaaliya ku caawiso inay dowlad dhisato dadkaasi waxay ka soo jeedaan beelaha muqdisho degan badankoodu haddaba fiirsada hadalkaygaas waana tamaanta sababtay in cilaaqaadka ay yeesheen ama understandingka ay yeesheen beelaha degan muqdisho beled weyn adigu southkaasoo dhan dhinaciisa isku wada daran halkan ujeeda waad fahmaysaan
waxaan ku hadlayaa luqad diblomaasiga ee ma doonayo inaan dee waxyaalihii aan ku hadlo qabiilka ahaayo aan dadka dee caadi maanta u bandhigo arrimaha caynkaasi waxay sababtay bannaanbixii ay abaabulayeen qolooyinka ku adeegsada waxaa la yidhahdo midnimo soomaaliyeed hiil garan muxuu ahaa soomaaliya toosoo reere ayaa lagu dagay arrimaha caynkaasa in qolooyinkii caynkaa ku adeegsan jiray ee doonaya inay kusoo bannaan baxaan jamhuuriyadda barakeysan iyo madaxweynaheeda in america in arrintaa ay dad badani ka joogsadeen oo soomaaliya oo yidhahdeen annagu waxaa baanu taageeraynaaba meesha la yidhahdo somaliland waayo somaliland waxaa ku badbaaday ummad soomaaliyeed waana waddan politically inaga duwanaa geographically inaga duwanaa waana dad wax qabsaday haddaba la socda arrimo caynkaasoo badan ayaa jira tani waxay ku tusaysaa balada eega dadkii soo bannaan baxay waxbaan yara tusaya waa cajiib dadkii soo bannaan baxay waxay noqdeen yani sad story adigaa naxayaba did you see that waad tiri karaysaa 1 2 3 4 5 6 7 intuba waa hadhaagii siyaad bare nin baa ka hadlay arrinta caynkaas la yidhaha yaasin ducaale ama qoslaayahan anigu qoslaayaha maxaa la yidhahdaa ninkan cali xaraare la yidhaha qosla ninka qosla maanta yaasin ducaale oo isaga qudhiis halkaa kaga sheekeeyey inaan idinla wadaago ayaan jeclaan lahaa laakiin maybe sugada videoga inaan idin helaa laga yaaba nimanka caynkaasa dadkaasa isugu yimid yani waxaad arkaysaa halkaasi inaanay ka soo qayb gelin beesha muqdisho degta beesha beledweyne degta beesha jawhar degta beesha caanka ku ah inay soomaali midnimadeedii iyo qarannimadeedii iyaga lagu baabiiyey guryahoodiina lagu dhex degay reer somaliland siyaasaddeenu waa inay noqoto surgical markaad kelida galaysid waa inaad wadnaha u tallaabin markaad wadnaha doonaysid inaad gashid waa inaad isha qalin siyaasaddeenu waa inay noqoto mid had iyo jeer differentiate garaysa dadka hoostaalka ku ah cadowga caadiga ah ku ah reer somaliland iyo dadka aad ka dhigan karaysid saaxiibo that's what happened aan ila yara walaago nin aan runtii aad iyo aad halkan u kalaamaysan oon doonayo ninka la yidhaha mawlid oo runtii noqday one man show ka dhigay in america sidii waftigaa loo soo dhoweeyey oo runtii iyo dhalinyaro fara badan oo reer somaliland oo jaaliyadda halkaa degana sidii ay isku organize gareeyeen iyo ninkaasi sidii u horboodaya mawlid yani waxay ahayd arrin aad iyo aad dhammaantayaba nooga farxisay waxaanu leenahay jaaliyadda reer somaliland salute koofiyaddeedii caawa waan saaray koofiyaddeeda soo qaadan jiray meela koofiyaddeedii kaboyga halkan intaalla yaa waan saarayba caawa koofiyaddii ya you know why because markaan arko dad reer somaliland oo soolila ya siday meesha arrimaha u dhigayeen yani is amazing extraordinary something runtii aad ku farxaysid aad ku seexan kartid that's why baynu uga saxana haddaba la yala socda qaar badan baa laynagu soo diray oo la doonayaa in dhexdeena laga shaqaysto iyo inaan arrinta caynkaas in dhexdeena laga shaqaysto iyo inaan u dhaadhicin waxaa jira dad torojan horos inagu ah waxaa kuonaya annaga oo reer kala reer somaliland bay sheeganayaan haddana waxay abaabulayaan arrimaha maaragtay maalkii maaragtay arrimaha dadka cadowgii ay wadaan aan yala wadaago jaaliyadda reer somaliland oo mawlid uu hogaaminaya ninka la yidhaha mawlid hanti qaran ayaan imika u bixinay runtii maasha allah ya siduu arrintaa meesha uga qayb galay niyo anigaaba la yaabay wuxuu yidhi laba islaamoodoo laba laangana ah ya laba islaamoodoo iyo oday laangana ah ayaa meesha marayay gabadh iyaduna tima caddayd oo reer somaliland ah oo iyadu oo qiiraysnayd weliyaa maraykan dadkaa waynu soo casuumaynaa insha allah halkan england baynu kusoo casuumaynaa mar oo meel ay ka ahayn ya maxamed gaashaano halkaynu kusoo casuumaynaa hirtoolkeeda iyaga iyo mawlid iyo qolooyinkaa ka qayb qaadatay waa inaynu halkan keenno weeye absolutely mar oo nahno yes we feel the brotherhood waxaan u arkaa dee rag iska dalxiis tegey kan maaha yara sugan mawlid ha washington d c waxaanu ku soo dhoweynay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland mudane muuse bixi cabdi qof waliba ka soo kicitamay dalka maraykanka meelshii uu ka joogay wadamo kale fogfog iyo intii magaalada kusoo borgarayno oo soo dhoweyno alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahayna waa nagu gulay dadkii meelahan waxa kale la cararnay laba islaamood baanu aragnay iyo odimalaha intiina markay arkeen inta ka tirada badan ka xoog badan waaba yaacayba jaantaa rogan waxaan leeyahay somaliland meel kastoo jooganba guriyo gobonnimo qaranku waa mid weeye maantoo kale waa mid walaa xisbiyeennaan aqoon walaa wax kaleynaan aqoon qarankeennu maanta waa mid qudhiyaata hal quraynu ne
hilbo wada dhashiyo maantoo kale waxa weeye waa hilbo wada dhashiyo hayb qoranaynu hilbo wada dhashiyo hayb qoranaynu nahay waxaan ku soo dhawaynayaa marti sharafta waaweyn ee haddii bada ku horeeyay maxaan ku dhahay mas-uuliyiinta ee jaaliyadaha ka kala socda ku soo dhawow waxa weeye waa cabdirasaaq maxamed jaamac waxaan u hadlayaa dhammaan jaaliyada joogta washington d c maryland iyo virginia iyo say u dhantay north americaba anigu waxaan ahay afhayeenka somaliland strategy group oo ah ururka samafalka ama la taliyaha somaliland ee maraykanka waxaan leeyahay jaaliyada somaliland maanta si wanaagsan bay uga soo qayb gashay madaxweynuhu khudbad caqiibo leh oo sharaf leh oo somaliland maanta karaamadeedii iyo sharafteedii maanta dowlad nahay iyo inaynu dal nahay iyo inaynu ka mid nahay qaaradda afrika iyo adduunyadaba inay maanta somaliland loo baahan yahay inaku inaanay cid u baahnayn ayaynu tusnay inakaa laynoo baahan yahay maanta inakaa laynoo baahan yahay maanta waxaa laynoo baahan yahay maanta waxaynu ku taallaa meel muhiima waxa maanta la tusay waxaan afrika ka socda iyo yurub ka socda iyo meel walba inay somaliland nabadda kow ka tahay inay somaliland ka tahay wada tashiga in lala tashado oo lagala tashado nabadda lagala tashado horumarka laga tashado dhaqaalaha intaaba madaxweynaha maanta soo bandhigay caalamka aad buu soo dhaweeyey madaxweynaha caalamkiina wuxuu leeyahay maanta war somaliland annakaa idiin baahan natusa nabadda saa u dhaliseen natusa saa horumarka u dhaliseen natusa shacabkiina saa u madayseen natusa sida dimuqraadiyadda iyo wanaagga iyo sharafda somaliland leedahay sida u dhaliseen natusa oo aanu ka baranno taasaa maanta lasoo bandhigay waa farxad weeye madaxweynahan iyo waftigiisana waanu soo dhaweynay hawshaasina si wanaagsan bay u socotaa waana wanaagsanay nimankii dadkii lahaa waxbaa la mudaaraadaya naga soo afar qof oo lasoo habaabiyey ayaa halkaa isugu yimid waana dad cuqdadaysan marka innaga waxba ka odhamayna taa laakiin jaalada somaliland waxaanu maanta yaqiinaynaa dad cuqdadaysan oo buka oo jajabana oo uselessa oo caantayna oo ilaahay xataa malaa'igtii ka rawaxday ayaa meeshii isugu yimid oday yaroo laangaraa laba islaamood oo single mother dad xataa calankooda u gogoonaa baa lagu leeyahay yaa calankoodu xataa cirifadu ka gogoonaa oo meytiya dad meyti lugaynaysa adigu baad aragtay ayaa meeshaas isugu yimid laakiin dadkaasi waxay ahayd dad gooniya waa la kala saaray sanadka reer somaliland waxay yaareen political la yidhahdo surgical arrintan horta markay dhammaato waxaa la yara saarayaa hogaamiyaha beelaha ka soo jeeda muqdisho niman la yidhahdo jamaal nuur iyo nin kale la yidhahdo dahir calasow oo arrintaa iyaguna ka shaqeeyey nagala shaqeeyey haddaanu nahay jamhuuriyadda barakeysan reer somaliland inaanay dad hawiye ku bannaan bixin madaxweynaha somaliland la socda arrintan ilaa iyo bari ilaa galbeed somaliland way midaysan tahay dadka halkaa maanta jooga isugu yimid meel walba somaliland waa mid weeye midkeenna waxa weeye nabadeenna guusheenna horumarkeenna iyo dalkeennu jecel lahay waa guul iyo gobonnimo allahu akbar somaliland ha noolaato iminkana waxaan ku gudbinayaa hablaha halkan isugu yimi ee maasaaka halka taagnaa ee inay somaliland qadiyadooda in halka u taagnaadeen ayaan ku gudbinaya insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. halkan waxaan salaan uga gudbinayaa dhammaan reer somaliland meel kasta joogaan dalka والله يا ما شاء الله الله يديك madaxweynaha iyageenu kusoo booqday dalka maraykanka washington d c maanta waxaanu halkan isugu nimi inaanu support u muujino oo aanu qadiyadeeda isdhinac taagno waxaa halkan nagu soo yimi oo iyaguna calamaan buluuga sitay qolyaha reer soomaaliya oo 4 qof 3 qof ahaa maasha allah aad baan ugu faraxsanahay 3 qof oo somaliland hore u socotay waana socon doontaa 3 qof oo cajiib meesha kayba hadda baan lama garanayna originality-gooda background-kooda waba hanaagyo caadiya somaliland socdaasho xidigaha dusheedii samada u socotaa kii sugayo samir marka hore waan islaamayaa bahda TV-ga qaranka anu waxaan ku hadlayaa afka jaaliyadda Ohio horta waxaan la yaabay laakiin waxay nagu oran jireen maraykanna ka haysanaa meesha maalka nimaadna waxaanu nahay dadka reer somaliland 1800-nadii ayay traveling ku jireen waxay ahayn dad meel kasta degan
dad cilaaqaad leh dadka kale adduunyada dega yani waa cajiib somaliland meel kasta uga soo dhabaxayso oo aan meela looga loodinayn dagaalkeeda haddaba la fiirsada tiyo taasi jirto ayaynu weli waxaanu bilownay wax la yidhahdo kala jajabin inaynu jajabinno qolooyinka ku adeegsada magaca soomaaliyeed kuwaasoo dilay baabi'iyey maadhar ku sameeyey reputationkii iyo imagekii uu magaca soomaali lahaan jiray magaca soomaali waa ethnicity la socda maha nationality waayo dadka kenya degani waxaa jira dad badan oo soomaaliya oo kenya degan nationalitygoodu waa kenyaan dad badan oo ethoobiyan ayaa jira oo soomaaliya ethnicitygoodu yahay la socda arrinta caynkaasa waxaynu sanadkan maanta aynu declassified ka dhignay waxaynu burburinay waxyaalihii sidaa isku haystay iska ilaaba ha isticmaalina kelmadaha la yidhahdo qadaad weyn walla weyn shakooyinka caynkaas reer somaliland oo boolisigani uu kala baxsan yahay somaliland friends fara badan bay ku leedahay magaalooyinka muqdisho beledweyne jowhar anaana la socda waanaan ogahay ilaaqaad fara badan baa inaga dhexeeya ha isticmaalina kelmadaha idinkala idinkaga hor keeni doono political ahaan taas waxaa daliil u ah hogaamiyaha weyn baan idin saarayaa ee beelaha hawiye muxuu ka yidhi arrintan somaliland ha noolaato ha noolaato jamhuuriyadda somaliland ha noolaato cadowgeeduna ha jabo jamhuuriyadda somaliland ha noolaato cadowgeeduna ha jabo soomaalinimo iyo midnimo iyo qarannimo waa waxa hawiye lagu baabi'iyey ee dad soo shaqo tegay ay ku gumaadeen ee ilmihiina lagu laayay ee cashuurtiina qayn lagu qaatay ee laydinku caayay ee alla il darantihiin wey anigu waa la yaabi jiray nimanka reesha ixsaan oo nimanka maxaa ku dhacaa dhihi jiray soo nimanku waa niman yaqaana qoladan reer ooyayaan u bixiyey mataqaanaa qaarkood ku abtisada beesha daarood waxa weeye niman soo akhriyo wey anigu waxaan leeyahay hawiyow ragga daarood waxay somaliland walaalaadaan waa isir nacayb waa isaaq nacayb reesha isaaqna waa naga saxan yihiin waxaan aaminsanaa wuxuu jaal maxamed faarax ciidid aaminsanaa laakiin yaa laydinka dhaadhicin weligiin in isaaq agtiina lagu cuno yaa laydinka dhaadhicin nimankaan nimo waxgala weeye waa indhihii irir samaale waa ilbaxnimadii irir samaale isaaqo waa duriyad waa dad gob ah waa dad xadaarad leh waa dad mataqaanaa jecel waalnimada hiil iyo hooba leh yaanan agtiina nimankaa faqashtaahi aysa ku caayin idinkuna ha dhegaysanina midnimada la sheegayo hawiyadan uguma jirto dekeda boosaasan lacag miyaa laga qaadaa tagisbaa wax miyaa ka yimaado dhul hawiye weeye waa may dad rag baa haysa soo maaha annaga dekedeenu baa la dhuuqayaa airbortkeenna canshuuraheenna baa la dhuuqayaa markaasaa nala leeyahay haddana midnimada ha lagu dhabar adeego oo isaaqina ha nala dhintaano saacadda laga bilaabo annagu reesha isaaqi jamhuuriyadda somaliland ayaan taageersanna bal ninkii faqashee anigay dhihi kara ma taageeri kartid bannaankii ha yimaado heeladoodu waa arrinta aynu u weynay dad badan oo runtii meel isku haysta oo ka hor yimid madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysanada somaliland beelo dhan oo ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa ka baxay inay ka hor yimaadaan oo lagu xadin arrimaha la yidhahdo hiil qaran midnimo qaran arrimaha caynkaasa dadka keliya meesha ka mudaharaadayey waxay ahayeen hadhaagii dowladdii faqashta ee maxamed siyaad barre ninkii burburiyey soomaaliya ninkii baabi'iyey wixii ay soomaalidu lahaan jirtay ama imagekoodii yani ninka caynkaasa ayuu ahaa waxaan doonayaa inaan idii saaro haddana nin kale oo beelaha ka mid ah haddana la socda waxaan doonayaa in idin ka dhaadhiciyo waxaan siyaasadda la yidhaa waa gacansaar meeshaad gacansaar ku leedahay ayuu xooggaagu yaallaa maaha inaad had iyo jeer waxyaala aan islahayn oo dhan isku saartid inaad cadow adigu isku samaysata maaha jamhuuriyadda barakeysan ee somaliland iminka siyaasaddeedu waa very sophisticated yani meel kasta gacanta ayay kula jirtaa nin kale oo isaguna arrinta caynkaasa markii la doonaya in madaxweynaha lagu bannaan baxo iyadoo la adeegsanayo heesta la yidhaahdo soomaaliyay toosoo isku tiirsada yaa adeegsanaya waa hadhaagii dictatorkii maxamed siyaad barre ee burburiyey hadhaagiisii iyaga oo doonaya inay ummadda soomaaliyeed ka dhaadhiciyaan inay jamhuuriyadda barakeysan ee somaliland ay cadow ku tahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo degan tahay maaha jamhuuriyadda barakeysan ee somaliland waxay u tahay home waa guriga keliya ee soomaali oo dhan ku soo hirato ka shaqaysato ka xamaalato
seexato nabadgelyo ka hesho carruur soomaaliyeed ay ku badbaadaan iyo hooyo soomaaliyeed nin la yidhahdo jamaal nuur oo ka soo jeeda beelahaasi isaguna nin cayna magac miskiin lagama aha habar gidira muxuu ka yidhi mudaharaadkii ay abaabulayeen dadka aaminsan maxamed siyaad barre inuu ahaa yani nin yani hadhaagii maxamed siyaad barre idinku waxaad u taqaanaanba oo uu farmaajo xataa ka mid yahay la socda muxuu yidhi isaguna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة. waad maqlaysaa maalmaynaya إلهي سبحانه وتعالى يا معلم بفضله ومنه وإحسانه. الله سأقول maqalwaa jira الله أول آخر مرتب بني آدم نقدي سأوكل قرنهم محاسحا محاقل محاق سجوكت محاكم مغنية كما أريد هاي يا ديدن هاي يا كسور جدا يا علاذنيسا يا ودقيسا يا دنت أشيسا ninkani waa nin very serious la socda يا waa dadka siyaasadda fahmay ay ku obrolgelayaan dadka farmaajo u shaqeeya يا حساب تمرين يا أصل marka hore waxaan rabaa caawa halkan inaan ka salaamo jamhuuriyadda barakaysan ee ka dadka badan Estonia, Latvia, Denmark, 10 wadan oo Yuruba ama 5 wadan 6 wadan oo Yuruba waxaa ka dad badan Somaliland. Djibouti waxaa ka dad badan Somaliland. NFD waxaa ka dad badan Somaliland. dekedo iyo barwaaqay haystaan ceel qabkiisiyad baraadilay farmaajo nacab kurdish ayaa ku dhagan calanka Soomaaliyeed ayaa lagu dulmiyay oo buluuga mar labaad nacsiga lagu soo dulminaya waxaan rabaa marka hadaa tahay qof wanaagsan oo qalbi fiican hadaa hawiye tahay waxaan ku leeyahay horta marka hore fadlan garab istaag Somaliland Mareykanka ku garab istaag markaysan waxay ku garab istaagaysaa mareeya wuxuu ma maqlaysaan osa reer Soomaaliland siyaasaddiina had iyo jeer kala saafa dadka ha isku darina anigu waan arkay inta badan waxaad siin emotional bulldozing baad ku samaysaan wax kasta oo israadaan qadiyadda Soomaaliland ka soo horjeeda dadku waxay kala socnaadaan saaxiibada walaalaha iyo dadka maanta la shaqeynaya la socda leeyahay hawiye madaxweyne xaqna uma lahan waa shaqo tag وتربل أجنتي وكودول نولي هاي وباراسايت أديك يلا الله هذا أقولك يلا ساق صعدة خريجة ديريا مدح كاغا بركتي فهد ياسين علوش كاغا تاغن حجارة مدح كاغا فديا الماء الريال وحي نقول دعي أن لا يعبي وحي كد عن لا يعبي هوية أيضا وحاصل نقول دعي أنك هوية بليس أن إساق أفضل ذينه SNM هدان هويناهي الله يدعم أبالان كلنا وارجيس SNM حبان كأساسني SNM رجعني بقول أنتي SNM يعني ما أنت أسر راعي فقشتي فقش وعلي هذا أنت عيلك غبطه أنت عيلك غبطه فقش علي هذا كردش تفقش علي هذا علن كي سوماليين هي كده علن كي كردش والسومالي لان جيبوتي وكوينتهي والسوماليلاند حقيقي ودغالمتي والسوماليلاند waa la dulmiyay waxa Soomaaliland ka dagaalamayso hawiyo maanta annaka inay haystaan la ilaaha illa anta subhanahu waxa Soomaal fiiri maanta qariijadii ka baxsanaanay xurumaad wal xurumaad fiiri nisaa lakum xurumaad dumarkeenu waa xurumaad xurmadii hawiye qariijadii ana sax ka garaacaysa gabar isaaqa oo ikraan tahliil oo kala oo hooyadeed isaaq tahay oo hooyadeed qaalib guhaar oo kala tahay inta nin aadaysa oo hargeysa jooga oo bistoolad dabada ka geliyo oo uu dhibaateeyo oo uu ciqaabo madililhay injeeriyariisow tubada afka ugu jirta qariijadii markay ka bixiso naftu ka baxdo kama soo noqolahay awil daahi salaad lama dilin madaxweyneyaalka guryaha lagu ma garan وارنتيس لكن waxa haystay inta badan waa la dhex degay reerkan hawiyaha la ilaa inta badan waxa la isugu diraa sida inaga la doonayay in kale lagu sameeyo kale oo garxaajis iyo habar awal iyo habar jecel filmeero caynkaas la inoo dhex qaado
ayaa inta la dhex degay reerkaa ayaa la odhan jiray habar gidiray habar iska ilaali abgaal abgaalow iska ilaali habar gidir yani kala qaybsanaan caynkaasa inta lagu sameeyey ayaa markii dambena calankii soomaalida oo dhan inta la afduubay iyo ummaddii soomaaliyeed ayaa waxa lagu sameeyey waxa la dhaha hijacking waa la afduubay markaasaa iyadoo la qaadayo soomaaliya toosoo ayaa muqdisho la dhex degay waxaa la dilay haldoorkoodii jeneraal galaal baa ka mid ahaa injineer yaruso baa ka mid ahaa igraan tahliil baa ka mid ahayd yani reerka gebigiisaba sidaasaa loo dhex muquurtay kan la dilayna waxba la iskama weydiiyo ya nin la yidhaahdo samting dhagax hebel dhagax ayaaba la isku haystay maxaa etoobiya loogu dhiibay tiyo muqdisho dhexdeeda lagu laynayo haldoorkii beelaha hawiye haddaba la socda halkaasaa la gaarsiiyey reerka caynkana yani aad iyo aad ayay iyaga toodii problem uga jiraa innagana inagama soo horjeedaan haddaynu nahay dadka reer somaliland waxaanu nahay dad had iyo jeer wada shaqeeya dad aaminsan waxa la yidhahdo two state solution laba xal lama siyaasadeed innaga qudheenna fikirkii caynkaas ahaa ee lagu galay hawiye lagu dhex burburiyey ayaa la doonayaa in loo soo xawilo jamhuuriyadda barakaysan ee somaliland iyadoo laynoo kala qaybinayo garxajis habarawal habar jaallo muxuu ahaa samaroon dhulbahanta waa halkay ka soo baxday fikirka la yidhahdo qolomaa tahay in la iska weydiiyo meediyada qolomaa tahay halkaasi dadka caynkaa u shaqeeya waa nabadii nolol shalay mid baa ku dhintay nabadii nolol ahaa beelaha hawiye kala saari jiray oo ka soo horjeeday beelaha hawiye ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya qofkaas wuu inaga hooseeya magaciisa waxaa la odhan jiray ismaaciil something shidane ninkaas beelaha hawiye ayaa lagu hogaamin jiray wuxuu dayac ugu dhintay magaalada muqdisho sonkor baa ku kacday wuxuu ka tegey waddankan ingiriiska annagu isku magaalaanu hayn dawo ayaa xataa loo qoori waayey in isbitaal wanaagsan la geeyo ayaa loo qoori waayey kiyo dadkiisii xataa laga hor keenay ninka dad kale u shaqeeya dadkiisa ka maaragtay diida halkaasuu ku dambeeya marka jamaal nuur ninka la yidhahdo waa nin dadka aad wax u fahamsan ka mid ah yani waa nin imika operationada ka dhacaya musabixi in laga hor yimaado musabixi waxaa la doonaya in laga hor yimaado magaca soomaaliyeed iyadoo la isticmaalayo wuxuu ka soo horjeedaa soomaalidu necab yahay soomaalidu caynkan ku yahay dadka ka soo horjeestay ee diiday waa nimanka caynkan oo kale ah jamaal nuuri oo kale jaaliyadda somaliland arrintaa iyada qudheedu ka shaqaysay hawiye action groups la yidhahdo yani dadku way wada shaqeeyaan wada shaqayntu tiyo jirto ayuu ajandahaaga adiguna wadataa isaguna uu tiisa wataa la socda yaan la idinku odhanin waxaan arkayay maanta gabadh iyaduna ooyeyso aad u xanaaqsan oo nabad iyo nolola oo kule garxajis baa qabay oo carruurteedu garxajis bay ahaayeen waa idiin soo dayn doonaa kule videoga insha allah tomorrow maanta time badan baan haynin oo carruurteeda garxajisa laakiin waxay caayaysay isaaqa intiisa kaloo dhan bay caayaysay waa gabadh mareexaana oo tiri niman garxajis ay guursaday carruur baan ku dhalay waxaanay aaminsantay in garxajis lagu gumaysto somaliland waa sheekada looga soo dhiibay fiilla soomaaliya waxyaalaha caynkaasa in laga hor yimaado ayaa wanaagsan oo dadku fahmaan kabaha laguma duugeen meeshaan gaarnay hawiyow meeshaan gaarnay nin la yidhaha af iyo calool oo dhaybarka laga siibi waayey oo ka yimid maraykanka qabiil dhan oo hawiya u shaqo tageen wax gaaradka waxaan soo dhawaynaynaa ilaahu hawiye u naxariis ilaahu hawiye u naxariis ilaahu hawiye u naxariis iyakaa isku xumaynay aamin wallahi waa war maxaa ka dhaca daradu baxay asuu annaka daraawiisha haddaan daraawiishna waa qaylnaa fiir cajiib haddaan dhul bahantannahay waay fiir wallahi waa nahay waxaan arka goosgoos maxay igu soo dirtay ilaah iimaanka idinka qadiya maxay igu soo dirtay wax jana arka ma hayni waa nin caloola gabar soomaaliyeed ma dhaafo gabdhihii hawiye waa dhibay gabdhihii daarad waa dhibay raggii ogaadeen waa dhibay nin waa qaniis hebel lacagow dhacay hebel lacago laalu show qaatay xildhibaanadii waa dhibay ilhaan wallahi waa geesi caadi ninkan waa ninka ugu geesisan beelaha hawiyeen arkay ee runta ka hadla had iyo jeer wuxuu ka hadlayaa iminka ninkii la odhan jiray nin cabdikariin la yidhaho maraykanka degan oo ninka curyaanka ah ee minnesota degan ayaa muqdisho yimid qabiil dhan baaba sawiradiisii jirta oo ku soo dhoweeyey magaalada muqdisho airbortka waa markuu leeyahay yani reerku u sirxan yihin reerkan uu sirxan yihin waa caadi maaha yani waxay u soo dhoweeyeen ma garanayno what is the point garan mayno yani something is wrong waxbaa qaldan isaguna kale anigoo reer hebela marka idinkuna ogaada la socda yan cadow la idinka dhigin beela iyagiiba dulman yan cadow la idinka dhigin somaliland sheekadeedu saxdeedu iminka si fiican ayay u dhigan tahay way xisaabsan tahay
لا صلاة soo dhaweeyanba shib 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 walaalayaalow hawiyow walaalayaalow hawiyow walaalayaalow hawiyow nagada la baxso adeero waxba somaliland uma hayside ma caabow adiga maan ku sugaa aniga الله يدعم ey gee hor kala hayow afartaas daayow del makeekiyaadsa waxaan rabaa dadka hawiyow dhegaysta caawa aniga waa idin barya caawa dhegaysta haddaad maraykan joogtid jamaala kaa codsanaya isaaq garab istaag waxaad u garab istaagaysaa walaweyn magaalada la leeyahay ayaa geel lagu qashay walaalaha daarood wax kasta oo haddii ilaahay koreey xiqdi iyo xamaayada waa ka baranay odaygii daaroodaha la xusaha la yidhi 2 sano markay xusaayeen aa la yidhi odaygii hawiye maya erer aan xusaayo erer wallahi billah amu hebel gaalkaasaa ka mid ahaa midka hadda jooga hargeysaan u malayo dib jirna la yidhaha ka mid ahaa saraakiil badan isaga ka mid waxaa ka mid ahaa ninka diyuuradiisa inta muqdisho ka baxay sheekh axmed kii abgaal ayaa ka mid ahaa raashinkaas dadkii karinaya hooyada ayaa ka mid ahayd geelan qalanay way isku nimid qaraabaan ahayn isaaqa xilligaas isku cidna waa ahayn caaway anaa idinka oge isaaq garab istaaga kurdishka tacbaanka ee dhulbahantaha iyo cidda farmaajo waa riimegeeda ma daaqo lagamana daaqo nabadna kama helaysid waa xasidiin madax ma astaahilaan ilma adeeryaal hawiyow ha u soo raacidin isaaq ugu yaraan calal aqal ha u soo raacidina haddii kale afhayeenkiini waaye isaaq garab istaaga wallahi billahi tallahi hawiyow dhulka naga weyn kalluunka naga waa la iibsaday shabaab nur saas u dhigay waa arrinta cay ka socotay yani way ka hor yimaadeen dhammaan beelihii hawiye deganaa dowladdaasi maraykanka inay ka hor yimaadaan madaxweyne muuse biixi cabdi inta ka hor timid madaxweynaha ee yar mudaharaadaysay waxay ahayd in yar oo haraagii mujrimkii maxamed siyaad bare la odhan jiray ee ummadda soomaaliyeed baabiyey halkaa dhigay siyaasadda somaliland iminka way kala saafan tahay we know our friends saaxiibadeena waynu naqaanaa kuwa innaga inagu hoos jira ee tolojan horoskaana waynu naqaanaa reer somaliland maanta meel ay siyaasaddeedu ka fiican tahay ma jirto waxaana dhammaantiin ba idiin sugnaaday inaad adduunyada meel aad ka joogtaanba aad ku dabaal degtaan qaar badan baa waxay maanta soo qorayeen oy lahaayeen heritage foundation waa jas hay-ad maaha hay-ad heritage foundation caadiya ama saan adigu u marinay sida heritage foundation waa think tank group weliba bolisiga impact ku leh public policyga dowladda maraykanka ayay impact ku leeyihiin haddii aad akrideen yani websiteyadooda iyo siday wax u dhigaanba intaasoo meeting ayay la yeesheen international leaders adduunyada ka kala yimid waxaanay had iyo jeer formulate garayaan ama dhisaan siyaasadda maraykanka ee sanadaha soo socda kuwaasoo ay ilaalinayaan valueska ama freedomka iyo practiceska siyaasadeed ay leedahay dowladdaasi maraykanka taasoo aynu doonayno inaynu aligned kaga dhigno siyaasadda somaliland la socda madaxweyne muuse biixi cabdi ilaahay raalliha ka noqdee sidii uu shalay talo u dhigayay maaragtay gololka fuulka ahayd waxaan ahay nin aad iyo aad ugu qanacay madaxweynuhu wuxuu muujiyey dhiiranaan madaxweynuhu wuxuu muujiyey sophistication madaxweynuhu wuxuu muujiyey yani waxaynaan uga baran ummadda soomaaliyeed ee just markiiba su-aalinta la weydiiyo iyagu tooda un ka jawaaba madaxweynuhu wuxuu yidhi I am proud but I am a poor man hadda la socda nin waxaanu nahay ummad proud ah laakiin very poora ummad waxaanu nahay doonaysa meeshay doonayso inay gaadho oon loo samayn karin decisionkooda ma la socotaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo halo waan ku salaamay miyaad dhegeysanaysa barnaamijka doorashada kaga maqaadatid waaye waxaan kada hadlayaa de waxa loo socday anuu nin waxaana weeye kala soo hadlayaa somaliland waaye martaa safartii qof baa idoo horeeyaa ku jira hadda may adigaa lagu dhegeysanayaa
سيدا قفل بري بولي هاي صوما هذا رأيك سيدا مكان Somaliland waxa way aqoonsigii maanta meeshii waxa weeye uu gaaray waa meel sare laakiin waxa weeye de safarta madaxweynaha waynu ka warhaynaa oo waxa lagu soo casuumay maxaa la dhahay heritage markaanu waxaan lagu dooda de waxa weeye Somaliland dirista aanu doodayna laakiin mucaaradkii waxaad moodaa inay ka dhaceen mucaaradkii Somaliland inaan maanta kula socon qadiyada ah Somaliland maanta caalamka qoor muuqato deegaano ma garanayo waxa mucaaradka ku dhacay wala dareen weyn ummadda aan ka qarsoonayn ba ayaa waxa dibadda u soo baxay marka kaasina waxa dhaawacaysa oo beela tahay xisbiyada mucaaradka ururadii la furo ururadina waxa weeye sidaasay ku furmayaan beela tahay haddii qadiyadu maanta ay ku hor yimaadeen oo daftar badan ay kama muuqanin sidaad u aragtaa guulahan waaweyn ee madaxweynuhu ka gaaray waxaan ku doonayaa inaan meed daawanaysaa barnaamijka sidaad u aragtaa madaxweyne farmaajo oo ka daawanaya tv-ga madaxweyne muuse bihi cabdi isaga oo ay maaragtay halkaa imika ma arkaysaa waxaa meesha ku sawiran farmaajo oo laga mamnuucay maraykanka inuu tago oo daawanaya madaxweynaha oo discussion ku jira madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan farmaajo waa nin doorasho u tartamaya laakiin doorashadiisa waa la hakiyey sidoo kale lama mamnuucin ummadda oo dhan waa la mamnuucay ma wax bixi kara ma jiraan marka waa ku saxsantay cid alaala bixi karta ma jirto inta doorasho ka dhacaysa iyada waa mamnuuc ma waxa lagu soo eedeeyay inay corrupted yihiin inay musuqmaasuq badan ku keeneen doorashooyinka muxuu ahaa xulashadoodii ay sameynayeen doorashaha u isticmaalin waxa ka dhacaya magaalada muqdisho waa xulasho waxa la xulanaya qofkii liidgarayn lahaa doorashada waxa la yidhahdaa marka mujtamacu ay foodka ku ridayaan sidaad u arkaysaa sawirkan iminka aad ku arkaysid sidaad u aragtaa sawirkan sidaad u aragtaa sawirkan aad ku aragtid iminka meesha aad ku arkaysid inuu farmaajo ka daawado muuse bihi oo washington d c dhex lugaynaya oo discussion ku jira ma arkaysaa sawirkan صورت ورتي صوت داير يا ماشي وليني كان واحد مداب وكل فدي وعليك دار يا لو كشكن يا دار يا مسك مدحوينها ودار يا مسك مدحوينها ودار يا مدحوينين مكان ما الصومال لان قضيه دار يا هروب بلاوي بان كرسيليه كخيلي انت فرماسه كشكنيو يقدر دار يا انت الصومال فرماسه او داوني باك سدو aragtaa farmaasho waxaan ku hadda waqtigiisu uu dhamaan ma sidaad u aragtaa arrintan u daawanaya muuse bihi oo washington dhexdeeda ya sidoo aragtaa sawir ka daawo sidoo aragtaa isagoo tv ka daawanayo lugeyn kari la socon kari la war caruurtiina cilaal baa tahay walaal soo saaraya meesha adiga iyo muuse bihi la sheegaysa markaysaa sidoo soo saaray weligiin yaalii waxaad ogaataan wuxuu markiiba ila galay ninkaasi markuu soo wacay dadka mucaaradka ka soo jeeda wuxuu doonayaa mucaaradka Soomaaliland caayo inaan xisbiga wadani caayo inaan xisbiga ucud caayo inuu deedna sheekada markiiba laakiin dadka noocaas waxa lagu gartaa waxa loo geeyaa dhinaca farmaajo waxaan aqayaan Soomaaliysan waa aad iyo aad dad noocaas lagu dhex buuxa oo nabadii nolola ayaa ka dhex buuxa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo miidiyadeeda waxay arkeen meel halkana oo ay qaar iska furtaan badawa jaahiliina taytala beena samaystay ayaa iska furtay meelo ay ka hadlaan qolalka noocaas ku soo dhex badan dhamaantood iyagii bay namoodayaan salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh wa calaykum asalaam warahmatullahi wabarakatuh soo dhawow waa ku salaamaya jaamacada aad iyo aad baan ayaan ku salaamayaa sidaad u aragtaa arrimahan meesha ka socda wala socotaan malaya programka arrimahan yani fogaalay barnaamijkaas baan la socdaa kolley waxaan u arkaa guul iyo gobonnimo insha allahu maasha allah iyo tallaabo hore loo qaaday haye waxaan se doonayaa inaan laba arrimood saddex arrimood inaan kugu baraarujiyo waay dadka kuwa aan la socon programka ama markaa waxaa laga hadlaya topiga inaga qabo waa kow waay markiiba xisbiyuu boodima kan ugu dambeeyey meel aanan uba jeedin ma garanaysa horta sawirka maxaad u aragtaa waninkaas ma sheegaa lacag baa laga joojiyey maxaa naga gala naga lacagtoodii wuxuu dadka camal jooga صح هي هي haddii socod laga joojiyo iyo haddii lacag laga joojiyo iyo haddii wax kale laga joojiyo
nin baa waxa la yidhi hebel baa ku caayi واي markaasuu ku arno waan ogaa walba col baanu ahayn وارون صح marka xamar dee waxa la wax naga yaala jira anaga ma garanaysaa marka qofka aan tuuga la haysan ee hadduu doonayo mawduuca in mid kale u jiidaa hadduu doonayo inaad naga qabato waan ma garanaysaa aad iyo aad waa naga qabtay kibada taagnay guusha Soomaaliland baa la taagnaa gobonimada Soomaaliland baa la taagnaa madaxweynaha muxuu qabtaa la taagnaa halkee maanta garanaysaa bal khudbadii sidee bay u dhacday baa la taagnaa yaa inta maxaa ma garanaysaa sidee loo ma garanaysaa support gareey baa la taagnaa yaa ka soo horjeestay baa la taagnaa hadda ma garan صح aad iyo aad صح marka dadka qaar baa doonaya idaacadaada lafteeda duulimaadku ah oo doonaya inay meelo kale wax u kaxeeyaan oo aan looga jeedin garanaysaa waa gartay si fiican marka kuwa ama qofkaas way noqon kartaa inaan programka la socdo iska soo dhex karin oo dhici kartaa laakiin marka la meesha la haysan inaga qabo taas way ga taa ay ku soco Sheekh Ahmed talabaad waxay tahay qoladii aan doonayaa inaan arrin yar ka dhawaajisaan doonayaa inaan ma garanaysaa iyadana aan ku dambeeyo laakiin arrin baan afka ku yara dhufanaya qoladan oo maanta ma garanaysaa ay ku mudaharaadaysa madaxweynaha waxa weeyaan yow dadkan inta badan waxbaa iska yaro hoos maro oo waxaad moodaa dadku inaanay siyaasadda si wanaagsan u wada dhugan dadkan meesha yaacayay horta Soomaali raxan weyn ka saar dirna ka saar hawiyana ka saar waa daarood waliba daaroodna waxa ka aha daaroodna waxa ka ahayn dhulbahante balaayada afka lagama dhowro wax kastaalkiisa loogu tagaa iyo mareexaana hadda may garat صح iyo mareexaana meelaha ka soo kaxaysteen waxa weeyaan haraagii kacaankii October iyo dadqalatadii hangashtii dukan laga eriyey iyo wixii xaaraanta ku koray ee Mareykan galay oo dhan Mareykan bay ku nool yihiin wixii baa soo urursaday islaantii muxuu lahaa ninkii laba islaamood iyo mid dhutinaya عليك مولد labadii islaamood iyo wax dhintidooda ay jeehayna dalkiisii mooyaane oo dadkii kacaanka October ka hadhay gaaladii madmadoobay weeyaan ma garat ee naxliga iyo cuqdada iyo ciilka la tiicayay marka beelooyinta hawiye haddii halkan ku jiraan inay dhegeysanayaan iyo haddii ka maqan yihiin ba iyagu sharaf bay naga mudan yihiin waxa weeyaan raxweyn waa sida oo kale beelooyinta tireed waa sida oo kale dadka wixii aan cadowno ahayn annagu cadow ma nihin wixii aan ogol waa ogol lahay wixii saaxiibno waa saaxiib wixii walaalnimo ogol walaal baanu nahay ninka yidhaa noloshayda diidana dee annaguna waa diidan nolosha muxuu ahaa jiritaanka akiira minkiisana meel marin ya midabkaaga ka rabin ma yahay Soomaali wuxuu intaasay ku soo urursantay hadda may garat jaamac si fiican baa ku gasay Axmed iyagina maanta guuldarray meeshii kala tageen iyagoo af kala wada jeestay oo intuu kala jeestay oo 9 jeer lagu cabaaday oo lagu dul rabaasay oo ma garanaysaa ay meesha ka yaaceen markii dambe iskaga tageen hormaran bay kala noqdeen صح wala iyagoo ooyaan maanta gabdho xagga social media ka ooyo le maanta waanu ku fasilanay arrinta aykaasa ayaan arkay aad baan uga naxay moogta arrinta aykaasa jabbay ka qaadeen shabbay ka qaadeen waxa weeyaan waxaani wabada allahu min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun waxaani ka filayn baa meesha kaga soo baxay in Soomaaliyeed baa laga hayay burkaba baalkama filanin hadda may garat arrintuna markii halkan oo kale ay taagan tahay waxa weeyaan wuxuu qarannimadii Soomaaliland iyo haybadii Soomaaliland iyo sharaftii Soomaaliland iyo dhiigii Soomaaliland iyo dhalashadii ay taagan tahay annagu wadanina kama hadlayno ucudna kama hadlayno beelana kama hadlayno waxaanu hadlaynaa keliya waa qarannimada Soomaaliland waa absolute way ka dheertaa qadiyadeenu halkaa absolute sax way ka dheer halkeeda la tashay reer Soomaaliland waxaan leeyahay oon ku celcelinayaa war dadka hala kala saaro sidaad u sheegaysay topica waa taabatay waa topica waliba waxaan ku oran lahaa topica hataa taawiyaha rag ku hadlay laftooda hataa iskaranaysan soo inay fight kara soo casuun waxa weeyaan arrintaas dadka hala kala saaro beeshii hawiyeyna wax badan fahantaad moodaa way ogaadeen meesha nimankan inaynu isku maranahay ilaa qiyaami inaynu isku marnayn aakhirana isula dhaadhacayno cid kaloo inaysaysanayn inaanay Soomaali jirin iyagana kuwa dhibka iyo halaaga iyo hoogga baday inay ku yihiin way ogaadeen marka dadka hala kala saaro
aad baan idin wada salaamaya qaaliga aad ma santa sheekh Ahmed Abdi Askar waa ku soo dhaweynaya marba ka qaatay ayo wala aad ma santa wala ayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجاهدات باقو السلام يا أخذ قرآن بو كتير ويد دقيستني. وارو مغلية. إن هذا وحويا ارتضت ماشي يمشي مولد الشاغي. وهاي هاين. لما إسلام الله نافع. واي. يقضي هدي هذا بكرة تعبان ويسوون الله لانجرك عمكا. سيدو نور شاغي أقصلا. ninkan على حرارة لا عنصرية نكو سوفر يستيو كرسية وقص لا يستيو دمركا دمركا لا باولا قص لا هوري ياسين دعالي ياسين دعالي لو أفكيس تحقق تو يوري كمل شيء وحاي إيمانية دارو داو شاب على الغباري واي ولا وين نجيسي سو خليها تاجل صح داود عنقاته يجسين نص واي sidee noo muuqaaladii inamadu inoo soo baayeen Somaliland arkay meesha joogayna nadii laba kuro ilaa khayraasiye waxaanu ka arki karaynay islaan tii Aysa oo 70 jira oo cadaawad ku kortay oo dawladeedii markii ay burburinay 12 sano la dagaalamayay qoxoonti ku noqotay xiriyaha dhadhaab kadibna waxa weeyaan boorashka sidii safka ugu jirtay Mareykan tagtay qorafkii Minneapolis iyo qabowgeeda ogeeday Yurub tani joogniyo Mareykan ka dhacayay haleelay dadka dad ku kortay imikana كرديو مير الله مير هيستاري ترين عاصمة ما نقول إنه كسومالي دكتور مير أي ما تكون ستانين ترين مير بقى كذا فرية هي يبروبلايم يدبريشن طبعا أي هاي رصد كميش مرينا والله ورطها صح الآدي هذا دهلنا تبعانا أي أركي ها آدي تعبانة ودهلنا ده تقديرنا إنك أنا كمصبح عبدي بقى يسارن نقر حاجة سنة حسب وطني من طاقران ما شاء الله وما لهوينا هاي ما بينو كلا شغلنا إيش كميت بينو إيش كدوني من سارني absolutely أنا قبل بان دقنا هاي وحويا نقر هالشيخ صحاق مركن كواركم ميراها ترين ستيشن هذا أنا ميراها لسوي ما دو كل شيء حيقرأ كل شيء وحقرأ وحويا ندير هو آمين يا عطوا الصنع يقول ترى ما شاء الله مركن سيحلم يدي يقول فن I know صح لكن كأكرون إسكي I know all in the family صح absolutely مركا هنا روح ويا ندير لما كورو هاي خبرت شيء بالبعض قرن إيه بالله قرن واحد لا قرن ما يلا إذا كان ملاك قبي شيء غير كان داود قرح حاجة أنا شيء ملاك ها وصلت دي ولا هالمدين لها هي غيرين شيء لبع الشعب يكون عايز غير كياد وعايز وأنا عضلنا الشيء يمكن هو فري واي عبد بريء إذا قرابة طبيعي يمكن هو فري أفرع الروك ضلي واي وحيد قلت منيابوليس أي دبر كساوق وبريه وحوين هدي اللي بكره عقدة الساعات بحي ناكتو مريحان اكرم ناكتو مريحان ولا قرر يا مريحان ها ناكتو إلى السوق إلى برامج إلى السوق فيديو كده السوق اللي هالكلام المال أنا بلاقينا دولة يا بيدا وأد سلام أدي هذا يعني سوى عايز وين حنوصنا هدي اللي بكره يعني ومركي دور جير أنا قري warkada ayo si kala deyn ugu dhaqan beelan si kala loo wadaali jirgada anigu waabay blogay bakeera dhukurada ingiriiska joogay garxasuuy blogay ma daawado kuma kalli ba samatal israabiya waa in ninkaas waa nabadiyo nolol wallahi ba waa nabadiyo nolol wallahi nabadiyo koob la takibi blogay inta kuul wanaa umada ka xisho sax ayu blog ugu jiiday ila ninkaas waa ninka reerka ku diray wadada xisbiga leeyla waa ninka umadii oo dhan ku diray isagoo nabadiyo nolol oo farmaajo taageero oo cadaan u taageera ayuu hadana ilaadaa waxaan ahay xisbiga wadani baan habeenay dadkii buu naxsiyay xisbiga la soo aniga waa adeerkay Muuse waa adeerkay inaka waa adeerkay iba kala xigaan waa niman waxa weeyaan eelba ku wada absolutely waa keeni kii guuleystaba waa keeni laakiin I know aanu arkaya cadow aan noloshayda ogolayn oo noloshayda ka baayo oo ninka isaaq muxuu u nooliyay waxay jamhuuriyadda Soomaaliland u jirtaa oo halka waxa weeyaan soo fadhiyaan oo arkaya ninka isaaq dib ugu noqon maayo wallahi eelba ku hawshiis ولا اللي بقى ما شاء الله قريبا وذا جوجنايو إن هذا أربعة كفر إن هذا عين سكوها إن إنه رقم بيرلا إنه وحوين هذه اللي بكون رسالة كل ما نسا بركة وحوين دنتن هنا رسول قدو برضه حال خير بين نقل على نجا حال خير أو كل شيء أو أندور اللهين أو عن اللهين أو وحوين دقيقة واي غير كحارة الله يلاحظه واي غير كين رد جنا حرتي
dhulbaantii warsigelina saamigoodii waddanka way ka haystaan innagii baa way isku fara badan haddaynu durriyadan nahay waxa weeyaan is haysanaa saamigoodii way haystaan haddii laba kuuroy cidna lama caburiyo cidna qori dhakada lagama hayo wixiina soo maraynaa inagoo 13 sannadood dowlad ah kuma hayno nimanka ciidanka lugtiba xuduudaha fadhiya oo bariga fadhiya naaga la kufsadayna ma jirto gurina habeenkii looma dhaco inagana wixiina lagu sameeyey wadawey inaga maanta ka ciidan wuxuu sheegay jenaraal garaalkii maalinta dhowto ay mareexaan ku dileen iyo Fahad Yaasin ay isu kaashadeen ay dileen afkiisa wuxuu ka sheegay uu yiri jenaraal garaal ha ilaahay naxariistiisa ka waraabiya ciidankii Soomaaliya oo dhan ciidankii ducaala waraystay wuxuu yiri ciidankii Soomaaliya ee dhan Ethiopia 77 weerar 35 askari baa waa Somaliland بوليس وكل عشان يصدقون عسكرية كانوا ميليتري وكتير واي ما بخور مركا إنا هذا حدود نواهي سنة أيضا نواهي سنة حتى أنا موسى وقصة ضمانة يا بربرة يصير تضاعف بقرب $1,000,000 أيوة كريستان لا العقد عشان العقد هنا لو كمادي تري مريك وكذا تري فوينه أيه هاي صديقي بركة اللي تبغى صار نقدر نمكها العقد بدن بعرف كلام خلاقات تبان أبسوليت تقولي تسوق الجواب واي هادو إنه مريك بالك إنه يماطه هو حوي عندي اللي بكوري تتوضع بقول مليونين إنه صوب شو وشيء دي الناس يوري كرائم كعشانه يا رضاها FT59 وهلو صح الواحد هالودي إنه كم عمره كرنا إنه هلو حتى إنه هلو واي بهني باعتراف إلهي وين اعتراف والله يبي ما شاء الله يجي بقى يستوصل تصنعات لمن يو وحوي عن بابايا وارن صح وحويا أنا وواحد صوّق على يوضع كان لابد يكون يستاهل طبعاً كي مسجد أنا باسبور بالسومال لكن أديس أبابا والله واحد كوار كلا ستين إلا تطبق جمهورية السومال باسبور كده ستين وحويا وطبعاً كندا يوم رايكن في سيسي لو صار يقوم بحي فاميلي وضحينين ما شاء الله باسبور كنا ماشي عين طولو واي ماشي واي أريفنا أنا أقول لك يا بغطينا كاسيان قلت المسوي ما غيره هو كم غليا هي نفس الجير هذا ما يصير هو كم غليا وتكون شيء ترى بدي بس هذا هاي كوس عموان هاي وتكون تجيستا مركا أنا أروح وين عندي أنا بقول أنا أروح الله ورادي مركو صار نوضو شعب سوينا عكسنا وراح الله أنا هقولي سهشود بريتو صح مريكان كيو وحوي عندي أنا بقول وحلا جشكنا هنا جاوا مريكان وقارة أفريقيا مريكان كا هنا وأنا صوت الشنو عدو وين ولا إن عدو وين أنا مدونه وحوي عندي أنا بقول استيان وقلب قاعدين الحين من كان عدو جاء كوا إثيوبيا تشوجا يكوا كينيا تشوجا يكون سوماليا ويو هايستبا وأني من عدو وحوي عندي أنا بقول ياي وأنا ما أنت الحين markaan u talahay wuxuu doonayay meel uu ku dhex dhuunto aynu il quraantii yarada baaleedo meel kasta aynu isha ku hayno marka dadka kaliya ee fahansano waa inaga mekanigaad sii deynaysa Jamaal Nuur wuxuu la hadlayaa wiya 4 sanadood buu qaylinaya halka waan la socdaa aad awgeyntii mika uu farmaajo joogo uu aargoostay janaaradii buu laayay dad wax karadkii uu laayay waxa weeyaan qaraxii ugu weynaa wallahi billahi tallahi shaqan ka soo baxo waxay labadii doornimo marka qaraxaasi uu dhacay xilli xagaayay baa 2017 bishii October baan malaynayaa inay ahayd 2017 anoo tareen sugaya ayaa Facebook sidaa weego waxaan arkay qaraxa dhacay markaasaa ilaahay yaabi kare waxa la yidhi 7,000 oo qof ay waxa weeyaan dadkaasi ahaayeen uu leeyay waxa weeyaan marka in adeer inaga waxayna la doonayaa deeqada maanta lagu jiro إنما كاس وراقنا بلا دولة هاي قميصي وكجلا إنه دقة الله سوق الله وأنا كيف يجينا هاي مدة كليان جمهورية الصومال لان شعب كذا وبين الضروريات ده كدنيا حوين والريارتين راها كعيد أما يستاء أفكار مون كأيو تيك توك كأيو وحاس إنك تيك توك ولا سلوك جورو دينتي والله يقول إنك جورتو يا أخي إنك جوران عروس واي وإنك جورتي هاي إنك جوران كنت أفدى إنك تيك توك بتشوفها حرام هاي واي صح inteena kale war shaqo qaran bay noo sameeyay shaqo qaran hal la galo imika hadii laba kulmi doona walaalna shaqo qaran tan imika waxa weeyaan ka qalin jibiyo laba xidigood baa la soo ciidanka badda adeer gacaliya waxa weeyaan hadii laba kulmi food and fire ba kula soconaya low hadii laba kulmi dawladeenu in adeer waxa weeyaan hadii laba kulmi alxamdulillah rabbil alamin meel wanaagsan maraysa arkeeda dhexdeeda insha Allah way xallinayna war صح من كلينا عدو الوشي عدو ما يهرب وانك جمهورية الصومال لا جريتان يلا كده حكاية ما تنتهينا كودة برضو ما تنتهي كودة أصلا تذكران كرسين يا برضو ما تنتهي برشونا يسألني يقول حنا هي ممكن أصدر ريتوبيا تما يكرت توبي كاد كهذا سياسة هذا شيء نونا يسنوقف
wanaagsan oo caafimaad qabaa tahay waxa weeyaan dadkuna sida ahaadaan baa fiican ma garanaysaa wax kasta waxa ka qiimo badan oo ka fiican jaamac baa la maqlayaa waa si fiican baa lagu maqlaa waa lagu dhegaysanayaa si fiican baa lagu maqlayaa ku soo wax kasta waxa ka qiimo wanaagsan inaad dadku waxay isu yihiin baa wax kasta ka qiimo badan waxa weeyaan habar awal iyo garxaj maalin baa waxa weeyaan ilaahay wada abuuray oo yaabaa wada dhalay mar dambe ilaahay dib uma abuurayo adduunyadu mar bay dhacday qadarkii ilaahay saabiq ahaa mar buu dhacay mar dambe ilaahay ma abuurayo walaalkaa haddaad dulayso adiguna waad dulaysantahay walaalkaa haddaad gumayso adiguna waad gumaysantahay walaalka haddaad nacab soo raacdo adiguna waxa weeyaan waad gumaysantahay halkaa marka ay taagan tahay gabadh Soomaaliyeed baa ahaan jiray nin walaalkii duudsiyey ilaah darajo sii waa Soomaaliyeed waa ka ilaah darajadii sii waa jaamaca waxa kaaga warramaya sheeko yar arrin baan kaaga warramaya anigu maalin dhaweyto magaalada Jigjiga la yiraahdo nin aan guri wada degan dhalinyaro jaamacadda dhigtaan arkayo nin kalarka haysto yarka marka uu kalarka haysto waan garanayaa waan habar yunisoo reesugula kan haystaana waan inaadeena kiibaa ku soo boodan saa kurwa sii daabahaya abiiba oo samxadina ka ku haystaa su lacag baan ku leeyahay war lacagtaad ku leedahay ku sii daayo qoobtana lacagtii baan siiyey adiga ka bixiyay lacagtii markaa يقول صح على عكس ذاك بيش يستحقونه قرشي لا هاد تحقونه بالعكس إثيوبيا ذاك الضرب ميلان نقولني صح خد هذا الحق هذا كان حنا قاعدين كيف ما عندنا ميلان سكوارجنا يقولي قال أدونا نسمو ساعة يقولون إنها بريون ساعة معك هكذا تقول هو هذا ما يكشي تقول تشيء سواء ما نعمل عين ما أنت تخيل عين ولا اللي بعد ولا يا بريون سنو شيء سنة بريون سواء حاجة تسوى فمن حاجة صح ومن فاميلي بنقول لك هذا هذا حين حكى كله واي حاول نشوف شركة كله هذا والله بالله تلا ورنتي واي صح كصعب هذا ما يقدر هل كاك بحبان كله يسكسرني أو ينو حكريني كرجال مركا وحنا وصلنا نقضي هذا الكنيكا وناقيسي هذا الوناقيسي توسمنتي نادر برشونا كسر وحنا وناقيسن وحكسته وحكى في عام وحلسبيه وحكسته وحكى قيم بدو وحلسبيه وحينور دحية ما هدينا تإلهي الجود الله ضياء إن الملك كل تجاهين تينا وضوضنا السلام عليكم برشونا السنة والله ما شاء الله قبل ما كان هذا عاون ماشي ما شاء الله الله يقدر والله هذه أنا بدي أقول شيء صح waxa weeyaan inaad horta aniga inta waxay ka maqashay reer wadani xalay hore loo qaadan kale waan la hadlay waxaan ku uri wadaniga kala dhiga oo waxa weeyaan deelwada odaygeena waa ka halka jooga madaxweynaha saynu waa leenahay in waxa weeyaan in metelaya madaxweynaha la taageero marka waxa weeyaan deelaba ku inta aqliga la waa iga qaadatay inta kalena waxa weeyaan deelaba ku waa nijaaso waxa weeyaan waxa la waxaan isku nimid aniga qofka eegayga iyo dhalashadaydii meesha ka soo jeeday diiday xitaa ma kaasaanan anu waxa isku hayn ma fahantay wala waa صح meesha ka soo jeedo marka ayar ninkani wuxuu doonayaa qoorta ka gooyo inuu ku gumaysto inuu waxa weeyaan unaadaha ka kubsado inuu xarunta ka hadlayo waxa weeyaan aad jirin hadda dabada gelista daadar lagu arki maayo laakiin ninka ila dhashay siyaasad السلام عليكم aan isku haysano waxa noocaas mooyaan ma jira ku soo aynaada aad ya عليكم السلام ورحمة الله soo dhawaana waa ku salaaminaa وأنا ما مغلسان وأنا ما مغلسان فوق شرفت له وأنا كل جسرنا سولو وأنا نقول مشاهد هاي تلياني قال شو قاعد يخلصوا الله يا عاصمة روما ما شاء الله سولو مودر هرسو بالنا تسيبان بريليا والريح إنسان هاي بيا لو حنا هاي أحمد نجح فرت حرية الشوي فرت حرية شارلا هاي بس ما شاء الله وأنا كقرنا سولو لا سولو وأقول ياجي إلى ذلك يلا وأروان دو هاي إلى ذلك قضية بريه هم بيوري شيء إلى ذلك وحكول مال الله لم يلعق السوق الصدى الله هنا رد رد كون فاني كرلا نجيب أي شيء سنة نجيب عيدا يسكلوا لنا واحد أديات كسر قبل كان السوق وحوي الماشين جمهورية بركيسان أما قرن كبركيسان ألا بركيي دريات ما كلا لها إن الله أنت قرن كقو أبترستي إسركون
awowgii lixdankii wixii ka dambeeyey waddanka deganaa waa somalilander war aad iyo aad bata dad badan ba aad inooga boodsano waxay doonayeen waxay naga barteen inaynu sacayno oo aynu iska dhex baxno oo anagoo reer hebel iyo anagoo reer hebela webiyaabay caawa waxay qolooyin badan mayin adeere aniga kula hadlaya anigu waxaan ahay nin jibriil yuunisa oo reer faaraxa nin samaroon siciida baan ahay maasha allah laakiin nolosheeda maan arag samaroonta laga sheekayo waa efamaan arag hargeysaan ku dhashay hargeysaan intaa ku leekaaday dadka aan dhaqankooda iyo culturekooda iyo siday wax u diidaan iyo siday wax u dilaan iyo siday wax u nooleeyaan waa reer hargeysa intaan ka garanaya cid kale ma aqaan ninka si fiican baan u garanaya ku soo wanaas garateeba walle war nimcaan xorraa la yidhahdaa aniga iyo asti horaan ahay niyo anigu hargeysadii horaan ahay oo ciidankii siciid gadaawaan ahay yaa siciid gadaawe iyo ma garanaysaa waan gartay walle si fiican maasha allah arrinkaas wuu garanayahay waa la iswada garanaya inaad iro taliya xigaal baa leeyahay inaan qodob uun baan meeshan u soo galay wariyo qodobkaan u soo galay waxa weeyaan wixii inaga dhexdeena ah hoos baynu weligeen baa u yaasheen guryaha ugu dhamaysan jireen ama samaroon ha ahaado ama isaaq ha ahaado ama warsangeli ha ahaado ama gabooyo ha ahaado ama nimankaa dhulbahanta ha ahaado waxay inaga dhexdeena hoos baynu u dhamaysan jireen laakiin iyo tiibaad moodaa inay naga dallacantay farabayni waa la soo dhex galay oo waxa meesha ku jirta qolooyin baa la soo dhex galay oo laynama soo dhex gelin muhiimadda waxay tahay dadkeenii hore ee magaalooyinka ku dhashay baa dhammaaday waa dadkii miyiyada ka soo galaynu tirsanaynahay waa dadkii adhiga iyo geelu ka dhammaaday dadkii deenaar dad aan secondary iska daayay dugsi hoose fadhiisan oo aan magacoodaba sida loo qoro aqoonba tiktok iyo loo furay waxaynaan garanaynba oo waa la hadlaa commenti baa la bixiyaa saa iyo saasaa la yidhaahdaa muhiimaddu waxa weeyaan tolka sharaftalo horta niyo anigu waxay moodayba qarannimadu inay maraykankaa ka dhisan tahay oo ad yurub tan dhaantaana anaga yurub tayadani waa baaba yurub aku qashan walaahi oo bilaahi oo tallaahi guriga aad gashaba innaga is cunayna cid kalena isma cunaysaa 94 hargeysa waan dhex taagnaa wixii bilaabmay unbaa imika fafaalaheedina yurub yaalla 94 soo ma garanaysa hargeysa wallaahi afariyo sagaashankii wixii bilaabmay iyo ifafaalihii ayaa hadda qurbaha ka socdaynaada anigu dhalinyarta markaan u faanayo aan la hadlayo imika maalinba waan ofkan weyne termin iyo roomaba istaan waa loo reer xamar aad joogto nimanbay caayaysa moogta isaaq idoor markaasaan intaan laabta ka galaan kuuri eeyaa waxaan kuu sheegaa dadkani maba aha isaaqe isaaqu waa aniga ila hadal intaan laabta ka galay way baqday waxay istiri qof waxbuu kaaga cararaya wallahi waa cajiiba ka waran markaasay tirimati والله كاشيغي إلى مثل روتي سأقول 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 ها واحد دوسني كاسارتو وصلنا إنسان إنه كلا كيا مش النبى هو قاتل إنه كلا صاروا إن ذكر السوبر هو يا أبي ربنا إنه كلا أبتري يا نفا ودي ترى يا أنو ولا وارن إيه يا رسول ها أنا عندي ترى يبان كربا نكيساق إيه ساق ولا رأي ولا اللي بح يا واي ولا إيه هذا ها أنا قاعد سمعنا يان كربا نكا إيه وإلى ذلك نكا وليه هاي وصايا صا نكا مكسور جيد ماش هو كرسي مو سوينا ضافيا يا صدق حتى الأصل نقوان تقول قبل كان الله يوم ومصبحي عرض ده وحي سايستان فيصل سوق من لا أبو تاجي صح وعنو وين ضافيا نقول من عوين إنه تجي مثل ما يمر يبريبا قرن كم جور قرن كم جور قرن كبضن قرن كبضن وحي نسكن يبا كبضن ولا وارد هذا وحي يسكن يبا كبضن aniga qarankan iga haya adduunyada maalinta laalaado ubaan waayaya reer sheekh saxaab yani waa leeyahay maalinta hore samarona ما شاء الله يا
كسر عادي أو تها حساسيو إذا صار عيا مدحوين مصبيحيو وعويا كلن كتير لوق كوصل رجال لوق يجينا كهذا يسيدايو واتساب كسر تميا لوق كوصل رجال فيديو أدو إك سوينا كهذا هي marka inaad waxa weeyaan horta harguniyo intii karaankayga waxaan ahay daacibaan ahay qaranka ama garatay oo arday waa meeshii ixda la igaga xiray qaranka laga maamulaa oo argeysa sarreynta boqoliyo soddanaad baan ku dhashay dhakhtarka weyn waay qof mii ka soo galay oo dadka wareeriyay manihin waa dadkii hargeysanay waay صح كودة magaalada hargeysa waxa dhex taagnaa sakadii waxa soo kuuleed leedahay magaca ilaahay inaan been ku sheegin dadkan maanta markaan TV-yada ka daawado la leeyahay rayga dadweynaha la weydiinaya ma baa hargeysa wadadka dadkeena wareeriyay naga dadkeena qurba joogti dadkan waa dadkii ariga iyo qodob ka dhamaaday iyo dad gobolada ka soo galay inama ahaba dadkan iyaga aad iyo aad baad maasatay muwaadin aad iyo aad runtii waan guursanayo ha u qoonsanina leeyahay qof kasta oo si xun u hadlayo oo qaranka ka leexo iyo dadka walaalaha dadkaaga kala saar doonto waay anigu qadaweyntan buufiya ku yaano qana libax wala libax hay'ad baad ma satay wala ma sha Allah faqashta qadaweyn waxa la ma jiraan faqashta qadaweyn ma jirtay faqashta qadaweyn waxa su'aal ma fatlu kala baxay walu kala baxay meesha ma toona safana mariya ku soo abuwadin adiga WhatsApp horta inaad waxa weeye waxaan ku sheegayaa kelmadda la yiraahdo qadaadweyn dhalinyarteena waxaan u sheegayaa inay ka waantoobaan kelmadda afkarashada ee beesha xaarood waa faqashna waxay ahayd wax allaala wixii laangaab iyo waxa weeyaan dabadhilif iyo beesha xaarood ay nala dagaalamayay ee 12 sanadood mariyay hadii galaan kala furanay صح aniga hooyaday واسكم نورمال واسكم الحاد لكن أنا هو يدو وين مر والله عايش شيء كتير هبين كستان كان سكول إلهي ومكوي وحي كل هذا هاي هبين كيتنو مجال كبحنا أيها صوص إحنا دنا مجال حافظاي كستان نقولتني طبعا كرتاني هو يدي وحوين أبهاي أنا وحوين واسكم نورمال واحد بدني مشكلة لكن قفت أنا جالسي إلهي وحوين هدي الأمر هؤلاء رأيه قضيتنا يقول شطي وحكستنا يشاكتي وحين رسول مريواني هو هويدي والله waxay ku tiri wax nimanka sameeyay jireen iyo waxay ku dhaqmeen waxay ku leedahay maalintii u dambeysay ee sanamtu ay soo galeysay burco ee lagu dagaalamayo waxay tiri jingadaha guryaha laga furnaystay gida wax kale wax lagu kala iibsanayay jigjiga iyo magaalada tuulada yar qarow la yiraahdo waxa la yiri ila biyaha ee saxara dhulka dhiisartiga ka dhisan dhulkaas lagu kala iibsanayay jingadii burco laga fustay wixii argeysa laga fustay jijigaan u kaliibsanaya marka waxa weeyaan tukaanta iyo injirta iyo faqashta waa waxa afkarashada qadaadweyn waxa la yiraahdo in joojinayna ma absolutely kan ku daray waxa weeyaan dalku maan dhaweyto u tijaabiyo kaan oo casriya dawladaha saaxiibnaa bayna siiyay oo isu hubaynayna hadii laba kuuri chance-ka dadka siinaya oo ku dhageysanaya hoos soo fariisanaya aad baad ma satan waad thank you wallah هاي هذه مشاهد نسوي عيبين وعدنا دي وعدنا ما صورن هاينا لكن نلهم مريكانو نقص كده إن شاء الله بوقف أسمع ما دي ممكن نسوي عيب مالي حاجة ده وضع كيسا ما نمرنا يا تمريدو ما تبغى تشوفها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام إن بلبل كسر على سلام علينا يا هذا كان لا يرد هذا هلا هم موادين وحنو مرينا يناد مريك كسر على ليسد maxaad nala wadaagaysaa sidee ayada soo dhaweyseen madaxweynihii siday hawluhu u socdaan dhagahan sidaa u taagaynaa waa maasha Allah aad iyo aad baa loo soo dhaweeyay madaxweynaha waay si wanaagsan baa loo soo dhaweeyay waay waxaan 19 kale waxaan qorshaysan meel ilaa 5 qaadaysa ayaa la kreeyay 5 oo qof meel hore waa la bedelay waay wadadkii baan way bateen oo kaladana way ka soo yaaceen xaggan Mareykanka la iskaga wada yimid waay marka ma aqaana marka dadkii ku bateen marka kullay
meel baa howl weyn baa la karaynayaa oo aan hodheel baa ahayn oo meel weyn oo hoolaa la karaynayaa marka waa maasha allah aad iyo aad bay wanaagsan tahay dadkuna waxaan meelaha ka qaylqaylinaya mooyaane intooda badan dhammaantood wax alla wixii reer somaliland ahaa majoritygood meesha way yaacayaan oo waa la wada socdaa marka afarta caloosha taagantee meelaha warwareegaya wareede afartan saddexdan islaamood iyo ninkan curyaanka ee meesha laga helay meesha yimid meesha lagu soo qoray maanta saxaafadda oo sawirkan iminkaan dadka maxay ahaayeen dadkan xagee ka yimaadeen saddexdan qof ee saddex islaamood iyo nin curyaana ya ni horta meesha way kala fog tahay oo meesha waa qaarad ilaahay weeyaan qolooyinka aadka caloosha u taagantii somalilantan waxa 16 hour meesha minnesota degan badan iyo haye marka dc oo ka yara fog tahay marka in yaroo Virginia degan oo old schoolkii hore ayaa timid ayuunbaa yimid oo iyagu yaacay meesha oo badnayn oo 6-7 qof noocaas marka miyay transportation bay waayeen maxaa afartan qof meesha keenay ilay waxaan filaynaa inay ka hor yimaadaan iyagoo cududa oo aad u fara badan marka maxaa dhacay ma garanayo waxaa ku dhacay meeshana dee lamaba inta badan buuq badan looma ogola oo siduu meesha tramberi uga waalay sidii hore maaha waxa lambar yar baa la ogol yahay xitaa laftooda annaga dad badan oo meesha doonaya inay tagaan xataa waxaa la yidhi buuqa badan lama ogola dib u noqdo marka qaar baa hodheeladoodiisa ka noqday marka waa sidaasi waa la soo dhaweynayaa madaxweynaha kolley waad arki doontaan muxaadaraha la dhigo marka hawluhuna way wanaagsan yihiin waxaan dadka reer somaliland u sheegayaa kolley anuu inta informationkeeda hayo hadday ugu yaraato waxaa ka soo baxaysa in xafiisna laga furo IMFD iyo World Bankuna ay noo furaan dhaqaalaha hadday ugu yaraato saldhigii berbere ee milatariga ayaa se ku dhis la hadal hayaa inay dowladda maraykanku lacag badan ku bixinayso oo ay doonayaan inay halkaas soo degaan ya wuu jiraa isaga laftiisu waxyaabaha imika discussionkiisu socdo weeyaan oo sida imika ay sheegayaan markaanu galabta ka nimidnay waxaa laleeyahay aduu close meeting iyo waxbaa jiray marka ma aqaano kolley waxay dee kuwada hadli doonaan laakiin hadday ugu yaraato dhaqaalaha waa la furayaa si toosa seen ula macaamilo maxaa ku dhahdaa bangiyada adduunka iyo maxaa ku dhahdaa marka dekada berbera inuu yimaado way u badan tahay wax yar baaba haray baan umalaanayaa jabuuti waktigii oo waa expire baad moodaa sida la sheegayo marka waxaad tani way socotay way dhaqaaqday ya war way dhaqaaqday loo kala harmaayo maasha allah waay wacdaraha la dhigana waad arki doontaan 19 maalintaasi gebigeedaba waxaa ilaa aroortii marka 9 marka quraacda laga yimaado ilaa 1 habeenimo meesha way noo koraysantay marka madaxweynuhu inta badan ma imanaya sida sheegayo ilaa 8 imanaya laakiin madaxda kale ee la socoto oo dhan meeshaan ku hojaagaraynayna haddii ilaha yidhaahdo adigu ma tegaysaa muwaadin miya adigu ma tegaysaa ما شاء الله ده هذا مو ده ولا إذا تلفون كيجي أنت فيديو إذا نص دوب أو ورك نص فيها سألوا هكذا نقصي دينون المشهد اللي هو ده إنه هالكم وصل كسا وصل كل دور هدي هاي ما شاء الله لباح ولا هاي الكوا كافلينا هذه هذا بسيط تذكر الموضوع شاليدا مريكا كسوماليلاند aad bay maadsan sida ay soo dhaweeyeen iyo yani wixii meesha ka dhigeen waanu la soconay sida u dagaalamayeen streetka lagu dagaalamay Washington DC waan arkayna that's absolutely amazing ayay soo galay waan arkay islaan urur doo dhacay arkay walay wasla wala webta ku haysa walinka ba isagoo qudhiis ninkan cajiiba ninkan sawirka bada la galay ninkan mawlid laakiin imika waxa la leeyahay haddana maaha way soo noqonayaan maalintan madaxweynuhu meesha imanayo waa la ilaalinayaa laakiin afkii indhuhu soo duubtay sheegin habeenkiyo qaar baa ma aqaana inuu sheegtay
halkaasuu marayay bay yidhahdeen de markii laga daba tegayna gaari buu kula wayaacaanba wali cajiib wallahi waxba ka dhacay meesha ya wali waxba marka sidaa weeyaan waa maasha allah dadku looma kala harin yaa been laydii sheegi cid u kala hadhay ma jirto wallahi iyo bila waa runtaa ilaa waxaa nala jooga habeen hore qaar sanaag berikay oo madaxweynaha la soo dhaweynayay nala dabaaldegay marka looma kala harin kuwa beesha dhaxanaysa oo dhaafaa ما شاء الله انت صار لك النبي والله انت اللي كدوني ويتا ما ادبد وامانتين وما صدت مواد ادبد سلامتي والله يبي تالي دار سومالان سيدي مارت وعذراها ماشي ودقيين سوماليلاند يقول غيري سوماليلاند افر waxa ka yimid mid dajinaya mid lagu yaro qaloocan adigu bas dhan oo la ilaabo the window lickers waxa loo yaqaan kan England looga yaqaano qolka muraadaha leefleefa qolay noocaas ayaa meesha ka buuxaba isla sheegayeen markii ay organize gareynayeen ay doonayeen inay abaabulaan waxa la soo dhigay boorar waaweyn oo ay dhigeen magaalooyinka Minnesota dhinaca kale dhinaca Ohio Washington lafteeda adigu isteediyo fara badan bay geeyeen ilaa North Carolina xagga Southka ayay geeyeen waxay soo dhigayeen waxa ka mid ahaa oo ay doonayeen inay soo dhigaan intii aanan dhex gelin aanan barnaamijka idaacadaha dhex gelin reer Somaliland arrimahan soo dhigayeen Somali Unity Rally kelmadda Somali Unity Rally haddaad maqashid kelmadda Somali hijacking baa lagu sameeyey waa la afduubay dad gooniya ayaa adeegsada kelmadda Somali la socda dadka adeegsada waa hadaagii dowladdii mujrimka ahayd ee Maxamed Siyaad Barre ayaa adeegsata haddaad aragtid dad wax wanaagsan u socda yani markii daba maxaa soo baxay markii ay dadkii ku ogaadeen Soomaaliyeed Soomaalidu waxa ka iman kartaa NFD Kenya waxa ka iman kartaa Ethiopia waxa ka iman kartaa Djibouti waxa ka iman kartaa Somaliland waxa ka iman kartaa Soomaaliya Muqdisho dhexdeeda markii ay ogaadeen inay kelmadda Soomaali daacad laga ahayn ayaa waxa isugu yimid intan oo qof waa 5 qof ma dhama dadka ku dabaaldegay ama ka soo horjeeday madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan ee Somaliland taasi waxay ku tusaysaa inaan unity lagu ahayn ka hor imaadka yani barwaaqa sooranka welfareka political developmentka iyo libiska ay samaynayso jamhuuriyadda barakaysan ee Somaliland taasoo had iyo jeer iska soo daba taraya waxaa laydinku celcelin doonaa dadka reer Somaliland ama meediada dadka had iyo jeer ku kacsan Somaliland ku celcelin doonaan 30 sanadood ayaa daydaysay waxa la yiraahdaa ictiraafka 30 sanadood aad bay u yartay waa fraction of a time waxay qaadan kartaa qadiyadu wixii markay yihiin waxay qaadan kartaa 300 years waa generation to generation tooshka sida la isugu dhiibo Olympiga ayuu qofba inankiisa u sii dhiibaya hooyo kastaana gabadheeda ayay u sii dhiibaysaa waxani waa wax soconaya maaha wax lagu caburin karo time maaragtay time scale loola kala 30 sano wax fog laga dhigi karo maaha waayo haddii ay dadka Soomaaliyeed daacad ka yihiin haddii aanay xaasidnimada Soomaaliyeed aanay jirin yani Somaliland iyo Soomaaliya waxay kala ahaayeen laba wadan oo soo maray two political maaragtay history kala duwan soo maray laba yani timekooda waqti taariikhdoodu kala duwaneyd sida Djibouti inooga duwan tahay NFD marka inooga duwan tahay wadamo ethnicity waynu wadaagnaa dadka ummadda Soomaalida oo dhani laakiin carabta oo dhan way wadaagaan iyaga u dhoodu haddana waa kala wadan nationalismkii baa kala duwan haddana la socda waxaan jeclaa oo aan maalintii dhawaatole madaxweynuhu khudbadda ka jeedinayay meeshii Heritage Foundation ya in political historyga yani dadka loo sheego oo laga dhaadhiciyo inay dadkani soo mareen different lines of thinking different lines of political practices different lines of political history different lines of political geography haddaba la socda inay dadkani soo mareen way kala duwan yihiin laakiin waa la iscaawin karaya iyadoo laba wadan la yahay ayaa economic cooperation ka dhici karaa uu ka jiri karaa freedom of movement uu ka jiri karaa Somaliland iyo Soomaaliya oo Somaliland wax la qaban kartaa Soomaaliya haddaba la socda Soomaaliya ay wax la qaban kartaa Somaliland soo imika ba Djibouti isku kaashano iyagoo ummad Soomaaliyeed laakiin meeshii maxaa ku jira xasidnimo dad baa waxa ku jira tribal isticmaalaya wax la yiraahdo tribal prejudices iyagoo had iyo jeer ku sheegay jamhuuriyadda barakaysan Somaliland meel ay qabiil kaliya iska leeyihiin meel ay qabiil kaliya maamushaan no it's not like that ma hasira
meeshani waa meel ay soomaali oo dhan isugu timid ay ku nabad gashay hawiya ay jooga ilaa foqashini oo hawiya ayaa baarlamanka somaliland ku jira dhulbahante ayaa ku jira ciise ayaa ku jira samaroon yani we are all there together intaasoo soomaaliyeed oo weliba qaxooti qaabishay ka yimid wadamada dhibaataysan ee soomaalidu degto trouble ilaha xagga politicska ayaa weliba yimaada somaliland oo ka ganacsada iyadoo taasoo dhini jirto ayaa haddana iminka laakiin waxaad moodaa timeku inuu la jiro meesha la yidhaha somaliland oo waktigii uu soo gabagaboobayo dadkii cunsuriyadda iyo nacaybka iyo haydka iyo maaragtay cunfigu ku jiray necbaa ku necbaa somaliland yani isir ahaan ku necbaa inay soo yaraanayaan oo beelo dhan oo degan muqdisho jawhar beled weyn yani you name it adigu ii sheeg ay yani ay ka hor yimaadeen arrinta caynkaas oo ay diideen inay ku mudaharaadaan kala soo horjeestaan bootada diblomaasiyadeed ee ay samaynayso jamhuuriyadda barakaysan ee somaliland taasoo meel kasta gacan togaalaynaysa oo adduunyada caasimadaheeda ka mid ah baarlamankeena qudhiisa ayaa isaga qudhiisu socday waddanka belgiumka aaliyaad waa la socotay lagu soo casuumay waxaanay dhex qaadi doonaan dhammaan parliamentarianska ummadda europeanka ah freedom nationska maanta free nationska dadka yani qadiyadoodu tahay inay dadku doortaan leaderskooda waana taa tamaata laysku dhaafsan yahay ee layskaga soo horjeedaa waa thesis iyo anti thesis la socda waa wanaaggii iyo xumihii oo had iyo jeer iska soo horjeeda wada dagaalamaya aan isla yara wanaago waxay ka yidhahdeen arrinta caynkaasa maaragtay socdaalkii madaxweynaha waxay ka yidhahdeen magaalada barakaysan ee boorame ee reer somaliland oo laga wareystay telefoonka lala dhex qaaday oo la weydiiyey maxay ka qabaan siday yihiin mid kasta isagoo aragtidiisa ka dhiibanaya aynu yara waraysanno aynu yara eegno aynu jalleecno boorame oo ah meeshii lagu aasaasay gogasha loogu dhigay jamhuuriyadda barakaysan ee somaliland iyo waxay ka yidhaahdeen iyadaykan maasha allah alla jaaliya jamhuuriyadda madaxweynuhu inuu dalxiis tegey ou la mid yahay un dee dadkii awalba wallaahi safarkaasi waxaan u arkaa dee rag iska dalxiis tegey anigu waxaan u arkaa madaxweynuhu inuu dalxiis tegey ou la mid yahay un dee dadkii awalba timashlaha u tegay maraykan sida fanaaniintii awalba maqnaa ee dalka dalxiiska uga maqnaa sida nimcaan hillaac iyo fanaanadii caanka ahayd hodan cabdiraxmaan telefishanka caalamiga Home Cable TV ayaa saaka mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxaana weydiinay sida warkaan safarka wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland ugu kicitimeen cariga dalka Mareykanka dadweynaha ayaana siyaabo kala duwan fikirkooda u dhiibtay kuwaas oo qaarkood safarka madaxweynaha ay ku sheegeen mid guul ah halka kuwa kalena ay sheegeen mid aan the only thing ay xorriyadda iyo maartay ay cajiibka ku tahay Soomaaliland waa fikradda xorriyadda fikradda qofka muwaadinka wuxuu doono oranayaa isagoo Soomaaliland dhex jooga cidna la hadli mayso that's the beauty of Somaliland faa'iido lahayn waa sidii hadalka u dhigeen socodkaasi socod ka muhiimsan socodyadii caalamka lagu tagi jiray weeyaan quwaddii koowaad ee adduunka oo maanta dalkii jamhuuriyadda Soomaaliland la odhan jiray intay u yeedhay qaabishay gacmo furan ku soo dhaweysay waxay ila tahay maanta iyagaa dan leh aqoonsigii bannaanku yaallaa isaynu xodxodanayno iyo sida loo soconayo waxaan bulshada u sheegayaa in la hambaliyeeyo anna waan hambaliyeynayaa wafdigaa qiimaha ballaadhan ee halkaasi tegey ee maanta dimuqraadiyadda ee bariya galbeed iyo kuwii dhaxba wixiiba ay wasado raaceen waxay la tahay aniga hawshaasi way dhan tahay waxaana laga filayaa khayr iyo bositif arrin aad u fiican oo dadweynaha ka farxiya anigu sida fikirkayga aan qabo aqoonsiga Soomaaliland waxa ku xidhan yahay bulshada ama muwaadiniinta reer Soomaaliland inuu ku xidhan yahay iyadoo is aqoonsata maamul dejin mataqaanaa is afgarata wada fariisata saamigeega qaybsata iyadoo horta is aqoonsata iyaduba isma aqoonsanay horta muxuu caalam kale aqoonsan malan u aaminsanahay markaa safarka madaxweynuhu inuuna qiimo badan daaranayn baan anigu u arkaa sababtoo waa shakhsi
dalku wuxuu leeyahay mataqaanaa legislative ama mataqaanaa golo sharci dejiyeed golo mataqaanaa wasiiro golo mataqaanaa xildhibaana golo mataqaanaa goorti buu leeyahay mar haddayna taasi go'aan ka gaadhin shakhsiyaad wax soo kordhin karaan oo ma arko aqoonsiga Soomaaliland waxaan u qabaa bulshooyinka Soomaaliland aqoonsigu inuu dhexdeeda yaalo ku tagay Mareykanka waxaan u aragnaa guul soo hoyatay Soomaaliland oo wadadii la qaaday aqoonsiga waanan hambalyeynaa boqolkiiba boqol waxaan ku tirinayaa in siyaasaddan inaanay noqonin siyaasadda arrimaha dibadda ku saabsanayd ee galbeedka Afrika uu ku tagay Kenya uu ku tagay aakhirkiina ay Kenya jiraan waxaan ictiraafsanahay meeshani waa boorame dadka fikirkooda horta waa la ogol yahay dadka reer Soomaaliland waxa ku jecelahay qof kasta fikradiisa ayuu halka ay leedahay oo ku taaraa qof walba hadnicin fikirka kale ama qofka shakhsiyaadka reer Soomaaliland midda kale nabadda isdhaqaadka dadka yani inuu boormayna mar tagaa ma u baahanaba meesha aad baan uga helay wallahi sida dadku maartay u damaashaadaya dawladda ma sha Allah disha saldhigeedu yahay taateedu inaan socdaalkani noqonin baan oranayaa aad baan ugu mahadnaqayaa safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waa hambalyo aad noogu weyn runtii anigu waxaan ahay reer Lascaanood waxaan oran lahaa fariin badii soo diyaanyo gobolka Awdal baan joogaa hadal waxba ma taraye waa in hore la socdaa inaga day qabyaalada yar Meelland gaarsiin ilaa tiisiyaad bare qabyaalada Meelland gaarsiinayn umar ka hadlana dadku hore u socdeen dadka reer Awdal ku dayanaadeen hore baynu soconaa insha Allah madaxweynaha qarankana waxaan rajeynaa insha Allah wallahi safarkaasi waxaan u arkaa rag iska dalxiis tagay Mareykan waa ogtahay waa dawlad weyn Soomaaliland waxa la yiraahdana wax laga aqoonsan yahay ma aha Soomaaliland waxa weeye meel ay beeli leedahay beeshaas oo beesha dhexe oo waxaad aragtay beel odaygii inantii inankii habartii hooydii ay wada mujaahid yihiin beelihii kalena ay wada yihiin faqash taa waxaa ka markhaati kacaya wafdigan meesha maray wuxuu ka koobnaa 12 laba nin baa kaga jirta beelaha darafyada oo milix looga dhigay taas waxa ku tusinaysaa inay tahay meel ay beeluuni leedahay waxa jira 18 safaaradood ama waxay ku sheegaan qusulada oo adduunka u kala direen hal qof oo taraxa kuma jiro marka waa beesha wada mujaahidka iyo beelaha kale darafyada oo faqashta kuwa faqashtaana oo kamid Ismaaciil wararka qaar ayaa sheegaya in dalka Mareykanka ay ku ولكن إذا عادي هرو دقيسدي والله يوديك عادي لكن فكرك ولا وفكر كيسة سجع عيك عقبة اكتبولت بركشنا السومال لو حي حد يتشير أي عادتك كانوا أقول أمانة هاي يعني فكر كيف اللي أقول هاي فكر كحرتي واقع عين كاسة ما شاء الله الله يقدر كل دونان سلطان أبو بكر علمي وبر وسوين دجاجنا لقي قانا يمدحنا Somaliland أرنتاسي أدوك درن عن كياد كقبتها هرتا إن لسكي ده هذول معها سلطان وروح ويان وكم يقام سرية ودتك المشي تجي وانين مبدأ عليه أو عامسن من نتكلم مغنينا نجوا سلطانكو هبين يوم معلومة نوذ شغنا أو نوذ حريدنا شكرا سواء كتيرين أي واحد كتيرين بسم الله الرحمن الرحيم مركورية وحن سلام يا تيفيجا عالمي هون كيبل halkan oo fursidiisina ra'yigayga ka dhiibto safarkii madaxweyne Biixi uu ku tagay Arweynaha Mareykanka anigu safarkaasi waxaan u arkaa uu safar tamashlayna safar madaxweynuhu ku dalxiiskeeyay waxa ay boorame oo aynu la wadaaginay safarkii madaxweynaha uu ku tagay dawladdaasi Mareykanka dhamaantii reer Somaliland waxaan doonayaa inaad dhamaantiiba yani celebration dabaaldeg aad ku gashaan meel kasta oo adduunyada ka joogtaan waayo imika waxaan ku jirnaa xilligii ay Somaliland guulo aan caadi ahayn ay ka gaadhay xagga diblomaasiyadda taasoo aad ka arkaysaanba baraha bulshada iyo dadku siday wada xiriirayaan mudaharaadyadii lagaga hor yimid madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysanee Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo waxyaalaha miitingnada iska daba jooga ay dawladda Somaliland ka sameynayso adduunyada inteeda kale ha ahaato xagga Europeanka baarlamaanada iyo madaxweynaha iyo waftiga culus ee uu hogaaminayay waxaan dhamaantiin bayni kaga tegayaa salaamta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan soo yar habsanay caawar alle hada barito leeyahay noqonnaa inagoo indhaha ku hayna oo la socon doona yani waftiga uu hogaaminayay madaxweynuhu waxa kaloo aynu iska herkeeni doonaa fikrado fara badan oo kala duwan oo maartay dadka reer Somaliland insha Allah
aad iyo aad ayaa dhammaadsiinba kaltuun warsame soo dhowow kulle gabar somaliland inaad tahay laakiin inaadeena soo dhowow dadku waa isku mid weeye yaan laga dhacdhicin waxyaalaha dadka kala kacayna iyo qabyaaladdeeda cunsuriyadda ee maaragtay baabaa waxaad tahay gabadh reer somaliland haddii aad gabadh reer somaliland tahay joog nala joog maasha allah waa qofkaas soo wacba kuma nin baa halkaa kasoo alaamaanaya ninkaasaan kaga sii tegi doonaa insha allah dib u wacaya iminka muwaadinka reer somaliland dhammaadsiinba aad baan mahadsantihiin maasha allah caawinnimaan marinaya waa ka baxay baan marinaya ninkaas odagii weli wayno dhammaantiinba saasaynu salaamantihiin waynaka wayno iyo insha allah habeen dambe